kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aynu ku soo qaadi doono barnaamijkeenana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dawladda federaalka oo ku dhawaaqday war si weyn uga dhixiyay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo qoorqoor iyo lafta gareen oo wadnaha farta ku hayo waxaan idin wadaagi doonaa warar iyo macluumaad culus go'aan dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo saartay doorashooyinka maamul goboleedyada dalka qodobada kale ee soo gudbin doona wararkeenana ku daawo doontaan waxaa kamid noqon doona Somaliland oo aqoonsi cusub ka heshay dawladda UK iyo macluumaad culus oo arinta la xiriira madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo madaxtooyada ugu yeeray gudoomiyaha baarlamaanka iyo kulan muhiim ah oo saddex qodob looga hadlay oo dhacay xamdiisu gudbin doona iyaduna macluumaad arintaas la xiriira kulankan iyo waxyaabihii laga hadlay iyo cid ku weelisay gudoomiyaha madoobe kulankan sidoo kale waxaa idin soo gudbin doona beesha caalamka oo ku dhawaaqday war si weyn uga farxiyay Puntland iyo madaxweyne Dani oo la tacajabay go'aanka beesha caalamka ay ka soo saartay arrimaha Puntland qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan asaateynta ugu gudagelin dhamaantiin waxaad ka codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan idinkoo muuqaalka like saarayo sidoo kale haddii aad tahay saaxiib nagu cusub waxaanu ka dalbanaynaa inaad subscribe saarato barteena YouTube-ka oo aad rukumato muuqaalada iyo warbixinada xasaasiga ee ku soo baahino halkan haddii aan wararkeena caawa ku bilownay isla markaasina ugu horreysino dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday war si weyn uga dhixiyay madaxda maamulada xubnaha ka dawladda federaalka ee Soomaaliya dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa hawada sare sabeynayay siyaasadda Soomaaliya iyadoo filaduna lagu qasbay in markan ay wajahaysato doorashooyinka dalka haddii ay noqon lahayd mid maamul gobol iyo sidoo kale mid heer federaal inay cadeyso nooca ay noqonayaan cadaadis xoog leh oo fila Soomaaliya la saaray kadib waxaa arintan ka hadashay dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa soo hadlay dawladda federaalka Soomaaliya ayaana markii ugu horeysay si faahfaahsan kaga hadashay arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo khudbad ka jeediyay shirka qurba joogta ee magaalada Dooxa ayaa sheegay in haatan dalka uu aadayo doorashooyin isla markaasina ay noqonayaan kuwo ay ka qayb qaataan shacabka Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in doorashooyinkaasi lagu bilaabi doono kuwa maamul goboleedyada dalka ayna dhacayaan dhamaadka sanadka 2024 sidoo kale waxa uu tilmaamay in qorshuhu uu yahay in la qabto doorashooyinka dawladaha hoose si shacabku u soo doortaan hogaamiyayaasha deegaankooda xukuumadda Soomaaliya ayaa tilmaamtay inay qaaday tallaabooyinkii ku habboonaa ee doorashooyinka isla markaasina la diyaariyay sharciyadii lagu hagi lahaa doorashooyinkaasi toddobaadkan sharcigii doorashooyinka iyo sharcigii xisbiyada waa la dhameeyay horey baa la rabaa in loo sii socdo waxaan rajaynaynaa in sanadkan aakhirkiisa dawladaha hoose iyo waliba dawlad goboleedyada iyo dawladda dhaxaba in doorashooyinkaasi ay noqdaan kuwa dad ku siman yihiin qof walbana codkiisu uu ku matalayo cidda isagu uu dooranayo ayuu yiri wasiir Fiqi dhinaca kale waxa uu tilmaamay in wax badan laga qabtay amniga dalka sidoo kale waxa uu tilmaamay in guul laga gaaray dagaalka shabaab kuwaas oo muhiim u ah doorashooyinka dalka haddaba hadalkan ayaa ku soo aadayay iyadoo haatan dalku ay ka taagan tahay xisad weyn oo siyaasadeed isla markaasina hoggaanka dawladda federaalka lagu eedeynayo inay hortaagan yihiin qabsoomida doorashooyinka maamulada xubnaha ka dawladda federaalka ee Soomaaliya ila wareeda wargala ayaa tilmaamayay in wasiir Fiqi arintan uu kaga jawaabayo guuxa baarlamaanka ka taagan isla markaana lagu dalbanayo dalka doorasho u aado lana ogaado goorta ay dhacayso doorashooyinka maamulada xubnaha ka dawladda federaalka isla markaasina ay soo jeedinayaan mudanayaasha baarlamaanka ayuu sidaasi ugu dhawaaqay in doorashooyinkan ay dhacayaan aakhirka 2024 si kastaba noqotay madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa hadda waxa soo wajahay markaasi cadaadis aad u xoogan iyada oo walwal xoogan ay ka qabaan qaabka ay u dhacayso doorashada iyo goorta ay dhacayso oo lagu dhawaaqay madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayuu si gaar ah dab ugu shidan yahay iyada oo dabka ku shidanna uu la xiriiro in ay dedejiyaan doorashooyinkooda waxaana jira siyaasiyiin isku diyaariyay inay kursiga ka ritaan lafta gareen iyo qorqor walow wararku qaar ay tilmaamayaan in siyaasiyiintaasi gadaal ay ka riixayso fil Soomaaliya arrinta qodobkaasi ku aadan doorashooyinka maamulada oo lagu dhawaaqana hoos noogu reeb maamulka Somaliland ee gooni isku taaga ayaa hadda helay aqoonsi cusub kadib codeyn ka dhacday magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska taasi oo noqotay magaaladii ugu horeysay ee dalkaasi ee ku dhawaaqday aqoonsiga Somaliland golaha deegaanka Liverpool ayaa Arbacadii sheegay in ay Somaliland u aqoonsadeen dal madax bannaan kadib markii goluhu ay cod u qaadeen sidii warisay warbaahinta maxalliga golaha ayaa markii hore ka dooday mooshinka aqoonsiga maamulka Somaliland waxaana dood dheer kadib ay u codeeyeen in Somaliland u aqoonsadeen dal madax bannaan isla markaasina ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale horey waxaa loo xasuustaa magaalooyinka Sheffield iyo Cardiff City sidoo kale oo iyaguna ka tirsan Wales in ay sidaan ugu aqoonsadeen Somaliland dal madax bannaan qurba joogtii ugu badnaa ee Somaliland ee ku nool dalka UK ayaa isugu soo baxay iyagu u dabaaldegaarintan waxaana inta badan qurba joogta reer Somaliland ee ku sugan UK ay ka shaqeeyaan golayaasha magaalooyinka ay joogaan waxaana ay u ololeeyaan Somaliland oo muddo 3 sano raadinaysa ixtiraaf inay hesho
arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah isla markaasina muddooyinkii ugu dambeeyay ee Somaliland dadaalkii ugu xooganaa ay gelisay aqoonsigeeda ay muddada dheer raadinaysay oo xitaa ay bad uga bedelatay dowladda Itoobiya sida ay hore u shaaciyeen madaxda maamulkaasi. warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jira haddii aanu fiirno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ugu yeeray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada ku qaabilay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu weheliyo gudoomiyaha baarlamaanka bulshada Bariga Afrika iyo wafdi uu hogaaminayo booqasho ku jooga dalka. kulankan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha muhiimka ah ee dalka. si gaar ah waxaa maanta kulanka lagaga hadlay sidii ajandayaasha la xiriira qorshaha Soomaaliya ee EAC baarlamaanka u fududeyn lahaa iyo in baarlamaanka Afrika isaguna qayb muhiim ah uu ka qaadan lahaa wada shaqeynta kala dhaxayso baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. gudoomiyaha baarlamaanka Afrika ayaa kaga mahadceliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda sida diirneed ee loogu soo dhaweeyay qasriga madaxtooyada dalka. sidoo kale waxa uu bogaadiyay guulaha wax ku oolka ah oo ay ku talaabsadeen shacabka iyo dowladda Soomaaliya, taasi oo muujinayso kartida iyo dhabar adeega ay ku tilmaaman yihiin dadka Soomaaliyeed. madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhankiisa tilmaamay qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ku aadan xoojinta iskaashiga iyo wada shaqeynta dalalka ay ku mideysan yihiin dalada bulshada Bariga Afrika, taasi oo furo horumarineed oo dhaqaale iyo nabad iyo amni u noqon karta guud ahaan gobolka. kulankan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha Marwe Sacdiye Yaasiin Samatar, gudoomiye ku-xigeenka labaad Cabdullaahi Abshirow iyo xubno ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo gudoomiye Aadan Madoobe ayaa kulanka markuu soo dhamaaday qaatay kulan gaar ah iyagoo ka wada hadlay xiisadda adag ee haatan filla Soomaaliya ay wajahayso diblomaasiyadeed ee dalka ka curatay. ugu dambeyntiina beesha caalamka ayaa si gaar ah waxa ay u taageertay doorashooyinka ka socanayo Puntland ee qof iyo codka ah, isla markaasina dadka shacabka ah ay dooranayaan hogaamiyaashii hogaamin lahaa. arrintaasi oo ay ku tilmaamtay wakiilada beesha caalamka inay tahay guul taariikhi ah u soo hoytay dadka reer Puntland. war ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu soo dhaweeyay guulaha taariikhiga ee ay soo hooyeen dadka reer Puntland iyo in nidaam dimuqraadi ah doorashooyin ku saleysan ay ka dhacaan qaar ka mid ah degmooyinka Puntland, iyada oo beesha caalamka arrintan ay ku tilmaamtay tallaabo guul oo hore loo qaaday. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa si weyn ugu farxay warka ka soo yeeray beesha caalamka ee ay ku bogaadisay guusha taariikhiga ah ee ay gaareen dadka reer Puntland. wararkeena caawana waa